السلام عليكم ummadda muslimka dhammaan meel kasta joogtaan la hadlaya gaar ahaan reer Jabuuti baan la hadlaya maanta xilliga waxaan ka imid gabood baan ka imid waa la diiday inaan galo hadii la diiday inaan galnana markaan meeshii shiidnay khasab baan ku galnay khasab markaan ku galnay wixii laga khabaynayo dhan ayaan soo ogaanay waxaan loo keenay marka biiroogiina la fadhiisiyay tin ilaa cilmiga maalkasta wana la baaraya markiina la baaray biiroogiina la fadhiisiyay waxa gacmaha Fuad Yusuf Ali oo labada garab la hayo ayaa lagu keenay meeshii kursigii baa la soo fadhiisiyay kursigii hadii la soo fadhiisiyay isagoo sakarada la soo fadhiisiyay toddobaad ka dhan iyo intaas oo dhanba waxay khabaynayeen oo meesha ay ku qarinayeen waan yaabsanaa bariyahan oo dhan waxaan lahaa Fuad Jaal Soomu darbane maxaa ku dhacay ayaan xalay dawlad u dambeysay amra Yusuf ay ragii cashada ka qaaday fariin ugu dhigtay ilaa nin la qurmistay ma meel lagu haystay markaan meeshii aan galnay isagoo garbiil lagu hayaa la soo fadhiisiyay meeshii ayaan ku oranay maxaa kugu dhacay afar askari baa garbaha iyo hareeraha basida waana la galab xidhay gabigeegiiba waana la ag jooga hadii la ag joogo war maxaa kugu dhacay ku oranay wuxuu iri isliintii markaad ii soo gasheen salaasadiiba sakaraad baan dhulka u dhacay cunuhu uu bararsanaa hunguriga ilaa carabka ilaa langadaxa finan baa gabi ka soo wada dareeray calooshu way dibirtay waa ninka wax u harsan ma jirto waa la sumeeyay ninka waa sakaraad weeyaan wuu dulman yahay ninka waa sakaraad waa maanta hadalkayaga inaan kelmad odhano oo kelmad hoos nuugu sheego ayaa xitaa la diiday inaan gabood soo galnana hadeed waa la diiday soo ma galaysaan baa la yidhi hadeed hore isna wuxuu yidhi cunto ma cuni karayo calooshii hunguriguba way wada xidhayihiin ee cunto damba hay keenina cuntadiisii waa kan waan soo celinay maanta waa soo celinay cuntadiisii waa waxaan u sheegaa shicweynaha reer Jabuuti baan la hadlaya waa ninkan ciddu u dhintay waa iniga ciddu banaanka iyo reerkiisaba uu uga baxo toddobadiisa ciyaala uga baxay waa duligii cadaalad darrada Jabuuti dhex taala aawadeed ayuu Fuad maanta uu dhibtaasoo dhan u mutaysanaya waa xalay maaha habaan hore waxaa ii yimid buuri ya ministeradii iyo dibitayadii oo wada socda ii yimid waxaan la keenay buuri shanta lacaga waxaa la igu yiri buuri gabood dhex fadhi shanta lacagtaana qaado waan diiday buuri shicibkayga xaqayla iyo noloshayda dhimata anigoo dhinta ay khayroon waa waxay diiday inay ifka u soo saaraan bay diiday avokaadi sakariya beritoole waa la waraysan doonaa waa loo diiday in la siiyo warqadii libetee broxwarki waa loo diiday sakariya waa loo diiday sakariya waxaa lagu yidhi dhakhtar looma ogola lagu yidhi waa la qurmisay wuxuu ku nool yahayna ma jirto waa shicweynaha reer Jabuuti maanta kii soo garab joogso Ismaaciil Cumar Geelaan la hadlaya shalay toole magaan booreer haddii ay maxkamadda lahayd ka ashtakeynaysa maanta anaa ka ashtakeynaya kaamana harayo ilaa kursiga faasha xulle ee muhiim aawadi aad dadka aad ugu dulmaysid aduu dhinto uu socdo waan arkaya ilaahayna ha u naxariistaan leeya laakiinse adiga ilaa aan kursiga kaa dhigo oon xaqa Fuad aan kaa helo wallahi inaanan kaaga hadhin kaagama harayo waa waxaad ka heshiina waxbaa iga siinina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gabood waa isa sheegay iyaan sheegayna inankayagu dowladdu ma xidha muhiim buu xidhaya muhiimina uu taaqtaaqsanaya Fuadna dulli buu ku jiraa inigaana geliyo xukuumadda haysto war cadaaladin mafaasil dusgay bayna jiri war cadaaladin mafaasil waxna bayna jiri gabood cadaaladin bali sheegaanay waxaan leeyahay Fuad hadduu dhintiyo hadduu dhimolaadaba anigu waxaan niigu sara taaganahay inta uu Fuad god ku jiro waxaan niigu sara taaganahay in aniga iyo dawladda reer Jabuuti ay xukuumadda haysto ee walaasha dulmiga ku haystay wixii uu xaqiray wixii waa nin shakhsiya wixii buu xidhay walaalka waxaan leeyahay shacabweynaha reer Jabuuti dawladdan waa afar dhilli faaris ka dhignaa leeyahay war maanta nin walba ninkiisa u dhaqaaqay hallo baan leeyahay maanta soo kaca iniga maanta idin taaganta shacabweynaha reer Jabuuti taageerada in muujinaysa in raacaysa maanta ee walaalnimo iyo wadannimo igu raacaysana ahlan wa sahlan baan leeyahay anigu maanta weer cad baan soo xidhay walaalkii noloshiisu waa soo arkay idinama sheekayn soo deeshay ka sheekaysay anigu waxaan u dhibar
diyaar wahay maanta waa ninkee ila dhimanaya oo diyaar ilaa gabood iyo dhimasho in la galo godka midkee diyaar loo ku adraaxay assalaamu calaykum.